dhibana Nuur Xasan Cabdi waa wiil dhibana ah oo 6 bilood jira muddo 6 bilood la xanuunsanaya xanuun ka soo wajahay madaxa oo ay biyo ugu furmeen waxa uu xilligan ku dhibaatoonayaa mid ka mid ah xaafadaha ku yaala magaalada Muqdisho. ururka Danwadaag oo ah urur dhalinyaro ayaa maanta booqasho ku tagay guriga uu ku nool yahay dhibana Nuur Xasan Cabdi. Aabe Xasan Cabdi Cusmaan oo ah aabaha dhalay Nuur Xasan Cabdi ayaa waxa uu ka warbixinayaa dhibaatooyinka haysta wiilkiisa waxa uuna ummadda Soomaaliyeed ka codsaday in gurmad xilligan lala soo gaaro maadaama muddo badan wiilkiisa uu xanuunsanayo habeen iyo maalinna uusan hurdin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. walaalahayga muslimiinta ah meel walba aad joogtiin dal iyo dibad waxaan idinka codsanayaa cunuga iga xanuunsan islaamnimada wixii wax lagu qaban karo walaalahayga muslimiinta cunugan bishaan 6 bilood waa intuu saayay meel walba waa lagu tacaalay meelaan geyn male qof iska miskiin oo reer tabaraaska ah aliyom raadina cunugan madaxa biyo ugu jira yiri mana awoodo waxaan ku miirana ma awoodo $1 ali soo dhahay mana awoodo cunugan saano xaaladiisa iga maraysa meel walba hadaan geey madaxa biyo ugu jira yiri mana awoodo walaalahayga muslimiinta meel walba dal iyo dibad meel ala meeshii joogteen waxaan rabaa in ilaahay dartiis ina wax igu caawisin qof muslimiinta oo inta muslimiin ah oo wax igu qabo karto waxaan idinka codsanaa cunugana iga xanuunsan inaa wax ii qabataan qof alla qofkii oo muslim ah oo diinta Muhammad sheeganayo waxaan ka codsanaa qof walba qofku wax awoodin nin walba waxa uu awoodo in cunuga ilaahay dartiis igu qabatiin idinka codsanaa walaalahayga muslimiinta ah intaasaan idinka codsanaa. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قف على القف المسلم شيئا حنوصل ما أبوه ما في إسبيتال كبير ميل والبانجين وعلي صودا يكون $1 أو ما كولا له وحنيك عد سنة هنا عنقان يو عاوزين أنت مسلمين ميل والبدل يدبت أنت جوكت أنت سعيدك عد سنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقدام بين وحا هالكاسي كهلي gudoomiyaha ururka Danwadaag Xudayfa Cabdiraxmaan Xasan oo gaarsiiyay lacag yar oo iska soo aruuriyeen qaar ka tirsan xubnaha ururka Danwadaag waxaana ummadda Soomaaliyeed ka codsaday in wax loo qabto wiilkaas dhibanaha ah. bismillaahi raxmaani raxiim dhamaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay dunida ka joogaan waxaan ku salaameynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. salaan kadib maanta waxaan subaxan oo ah 12 ka subaxnimo waxaan booqashaan ku imaanay guri uu joogo wiil aad u yar oo 6 bilood xanuunsan hayana xanuunka madaxa biyaha ugu furan waxaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay dunida ka joogaan ka codsanaynaa in wiilkan maanta uu u baahan yahay ummadda Soomaaliyeed meel walba ay dunida ka joogaan. wiilkan waxaa la sheegay muddo 6 bilood inuu xanuunsan yahay isbitaallo fara badan oo ku yaala magaalada Muqdisho la geeyay. Aabe Xasan oo aabe iska masaakiin lagu xidhiyo $1 habeenkina uusan wiilkan habeen iyo maalin uusan hurdin $1 lagu xijiyay. Aabe Xasan oo aabe iska masaakiin oo maciishada yoomiyeed oo maalmeedka ay ku adag yihiin $1 ma awoodo. anagoo ah ururka Danwadaag oo urur dhalinyaro isku xilqaamay ayaa waxaan soo aruurin lacag aad u yar oo aan ku filan xataa nolosha maalmaha ama maciishada yoomiyeed oo maalmeedka maanta aan ku wareejin doonaa haddii ay booraal ka noqdo. idinkana ummadda Soomaaliyeed meel walba ay dunida ka joogaan waxaan ka codsan lahaa inay wiilkan maanta idinka ayuu idin baahan yahay. Aabe Xasan aad kurbada maanta aad ka fiidaan si maalintii yawmal qiyaamo oo alla idin kurbada idinka fiid. maanta waxaan Aabe Xasan aan ku wareejinaynaa lacag aad u yar oo nolol maalmeedka xataa aan ku filan. aaba naga gudoon waana mahadsantahay. waxaan ka rajaynaynaa in ummadda Soomaaliyeed ay ku soo gargaari doonto si kurbada maanta ku haysato oo alla kaaga fiido. waxaan rajaynaynaa in codsigan aad naga aqbali doontaan anaga oo ururka Danwadaag iyo Aabe Xasan. nambarka la igala soo xiriiray furaha waa 8 furaha waa 8 kii hooyadiisna waa furaha la xawaaye kan hooyadiis furaha waa 6 furaha waa 6 kan hooyadii dhashay waaye 6 ummadda Soomaaliyeed meel walba ay dunida ka joogaan maanta waxa u baahan Aabe Xasan waxa uu mudan yahay in la garab istaago maadaama lagu xijiyay lacag gaaraysa $1 si uu wiilkiisa daawo u helo. dhammaan xubnaha ururka Danwadaag
waxay u duceynayaan aabba xasan cabdi cusmaan in ilaahay kurbada ka qaado wiilkiisana uu